Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka sheekeyn doono dalka Benin. Dalka Benin ama Republic of Benin waa dal ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Xagga galbeed waxaa ka xideeya dalka Togo, xagga barina waxaa ka xideeya dalka Nigeria, xagga waqooyina waxaa ka xigda dalka Burkina Faso iyo Niger, xagga koonfurna waxaa ka xideeya gacanka Benin. Caasimadda dalka Benin waa Porto Novo, laakiin fadhiga dowladda wuxuu ku yaalaa magaalada Cotonou, waxa waaye magaalada ugu weyn ee dalka. Cabirka dhulka dalka Benin waa 112,000 oo kiiloomitir oo iskuweer ah. Tirada dadweynaha sanadkii 2018 wuxuu ahaa 11,500,000 oo qof. Dhaqaalaha dalka Benin wuxuu ku tiirsan yahay beeraha xagga ay soo saarto cudbida iyo warshadaha yaryar. Wax kale oo ku tiirsan yahayna waxa waaye kalluumaysiga iyo ganacsiga. Dalka Benin waxaa ku yaala deked kaliya toole iyo airport kaliya toole oo magaalada ugu weyn ee Cotonou ku yaala. Luqadda rasmiga ee dadweynaha dalka Benin ku hadlaan waa Faransiiska. Lacagta dalkaasi uu isticmaalo waa frankida. Madaxweynaha dalka Benin magaciisu waa Patrice Talon. Intii u dhaxeeyay qarniga 17aad iyo qarniga 19aad, dalka Benin waxaa loo yaqaanay boqortooyada Dahomey. Waxay caan ku ahayd addoomaysiga oo loo yaqaanay xeebta addoomaha. Benin waxay xorriyadeedii kala soo noqotay dalka Faransiiska 1960. Diinta dalka Benin waa Kiristaanka, qaybta loo yaqaano Katoliga xagga diinta Islaamka kaalinta labaad ugu jiro. Daawadaha channelka waxaa ka raali gelinaya macluumaad fara badan aan ka helin dalka Benin.